السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا مقالكني عصبا فضلا فيديو كيشي لايك نقول ركلي سبسكرايب نوصار أديات بعد ما سنتين كسو دوادا مقالكني عصب anigu waxaan ahay 17 jir run ahaantii 2019 bishii 7 familkeyga meel baan isku yimi jirnay aan jeclayn oo miisa oo cuntaan ku cunno halkaasaan iskaga fadhinay familkiis kala baashaalinay runtii waxa dhacay waan soo baxnay marka nasiib darro meesha parking gawadida la dhigtay yar bay naga fogeyd oo wadayro qalqaloocan baa loo marayay oo dheer wadadu marka laba meelood bay u kala beedhaa labada meelood midna xagga magaalada ka kacda picnic midna dhinaca kale ka kacda la kabalera xagaas ka kacda run ahaantii 2 daqiiqo marka qaybta kale marka raacada qaybta magaalada ay 2 daqiiqo u jirtaa anti baarkinku aad buu nooga dheeraa waan iska caajisnay oo anigii hooyo iyo familka dhamaan anigii hooyo walaashay waan iska caajisnay waan iska seexanay yar kadib waxaan tagnay meeshii baan tagnay hooyo waxa ii dhibtay free hooyo dhibtay waxay ugu tiri maadaama dhulka uu ahaa qabow ahaa baraf ahaa waxay ugu tiri orado gaariga siishid si aw noogu sii kulaado oo hadhow toole aan u raacno oo nacam xaafadii aan ku noqonay run ahaantii markaan gaarigan yar soo jiray waxaan arkay nin baan arkay daaqada xagxaganaya run ahaantii saasaan u eegay dhar cawlan buu xidhnaa dharkii hore ayuu xidhnaa ninku timandha dheer buu lahaa markaas waxaan damcay inaan isaga la hadlo oo aan ku raado maxaa tahay adigu kadib saasuu ii soo eegay markuu saa ii soo yar eegay haddana ninkii waa iska tagay oo runaantii ilmu hadal uu iska baxay runaantii anigu waan yaabay gaarigan dib ugu noqday runtii anigu gaarigan iskaga noqday oo ninkii markuu tagay gaarigan ku soo noqday markaan gaarigii fuulay waxaan isku dayay inaan hooyo la hadlo oo aan u sheego hooyo si wax u jiraan iyo ninkan waxa uu yahay balse nasiib darro lambarkii hooyo uu dhici waayay oo maadaama ay familka hooyo la joogtay markii dhici waayay midigtaan eega mise ninkii baan arkay run ahaantii ninka wuxuu isku dayay inuu iga furo albaabka oo furo laakiin albaabka uu xidhnaa oo furi waayay anigu runtii waan qaylay waan ooyay haddana hooyan ku celiyay hooyo lamarkeedii uu dhici waayay hooyo markaan ku celiyay hooyo lamarkeeda uu dhici waayay run ahaantii waan carooday oo aad iyo aadna u naxsanaa maadaama hooyo lamarkeeda uu dhici laayahay waan yaabanaa laakiin meeshan parkinka qof bil aadana oo taagnaa ma jirin run ahaantii familkeygu iyo hooyo iyo abtigii hooyadii iyo walaalkeedii aabahayba way iska joogeen ninkii suu daaqadii iga fur lahaa uu furi kari waayay run ahaantii uu iska tagay ninkii uu ila hadlay waan maqli waayay ninku waxaan uu igu leeyahay ayaan maqli waayay maadaama aan maqli waayay run ahaantii daaqada xidhneyd kadib waan orday intoo ninkii markuu iga tagay waan orday familkii baan u imid hooyo furihii baan miiska u duldhigay hooyo waxa ay weydiisay maxaa ku helay igu tiri run ahaantii hooyo waan u sheegay siday wax u dhaceen iyo siday wax u jireen oo dhan hooyo waan ugu sheekeeyay hooyo aabahay iyo abtigay ayay u sheegtay arrinkii waxay ku tiri orda taga meeshii gaarigu yaalay bal soo eega dhibaatada meesha waxa ka jira gabadhu sheegay si ninka soo eega run ahaantii anigu aad iyo aad baan iska weeyay abtigay iyo aabahay gaarigii bay ka haysteen meeshii bay tageen balse anigu run ahaantii waxa waan qaadan lahaa waan ooyay habaryartay iyo hooyadii labadu way aamusinayeen waxa ma jiraan wax ma dhacayaan bay gulaayeen run ahaantii hooyadii gawaaridii way eegtay labadii gaariba way eegtay waxa ninka uu dhex fadhiyo dhinacna uu taagan yahay way ka weyday in yar kadib abtigay uu soo noqday iyo aabahayba waxay noo sheegeen inayna meeshii qofba ayna ku arkin run ahaantii anagu waan iska soconay markii dambe gaarigii baan ka xasanay ninkii ilaalinay gawaarida meesha parkinkan u sheegnay si wax u jiraan run ahaantii ninkii wuxuu nagu leeyahay ma garanay waxa la wax meelahan ka soo dhacay ama waxa la wax nin oo meelahan ag maray muu jiro dadka macaamiilka kaliya baa meeshan galaya oo gawaaridooda la galaya run ahaantii anagu waan yaabnay kadib saas ayay sheekadii ku dhamaatay aniguna saasaan ku nafisay haddii aad video ka heshay like saar comment ka soo bixi share na dheh aad iyo aad baad